afartan iyo saddex goobood baan u diiwaan gelinay oo dil qabiil uu ka dhacayo dadkii wali walaalaha ahaa isu sii dhawaa meelaha weligood dil ka dhacay haba maamulka BB ma aha maamulka yacni deegaanka ma aha waa kooxdii fallaagada ahayd ee hanyar bay saraakiishaasi u xidhan yihiin marka kooxdaasina waa koox lagu foolxumeynaya ururka oo wayna soo dhici jireen way soo joogi jirtay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دعوضياشنا قيمها يا قدرين تمضنوا كسر هذا ورئيس كوبان أو وكالة ورركا أوجدينية أنا ليلا نسوا وكيل كجبهة ودنيا حرينتا أوجدينية جوحة حسن بدل رابي جاس إن ورئيس كان أيام كو يجدونا بالحالة ده جود دولة الديان كصومالي ده سدا سحر بركة عبارها بلوجا يسدو أكله xaaladda ay ku jiraan bulshada dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeen dhanka kale waraysigan intuu socdo waxaan diiradda ku saareynaa bal wakiilka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen jawxo shaqooyinka inta badan uu ka hayo bariga Afrika oo uga yahay oo wanaag wakiil waraysigan ayaanu ku eegi doonaa xaaladda Itoobiya xaaladihii ugu dambeeyay iyo maxaabiis maamulka BB ay ku haystaan magaalada Jigjiga kuwaasoo kamid ah saraakiisha sare ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen jawxo hadaba waxa martii maanta xasan bedel ku soo dhawo wakaaladda wararka ogaadeen oona waa dhawahay aad iyo aad baad mahadsantihiin wakaaladda oona waan uga mahadcelinayaa xiriirka ay la soo samayseen waan ku mahadsantihiin shaqadaad u haysaan qadiyadda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo Soomaalida guud aad baad mahadsantihiin waa dhawahay aad baad mahadsantahay mar walbana waan garab taagnaanaynaa shacabka ogaadeen iyo guud ahaantii iyo gaar ahaan jabhadda ONLF mar walba ona waxay u taagan tahay inay caawiso xasanow bal waxaa tahay wakiilka ONLF ee bariga Afrika runtii markii la sheego bariga Afrika wakiil jabhadeed oo jooga waa awood weyn waan ognahay bariga Afrika caasimadiisa magaalada Nairobi ama meeshan bariga Afrika ugu weyn ee caasimadda Nairobi waa xarun weyn oo siyaasadda gobolka Afrika oo dhan mararka qaar maamusha waana magaalo ganacsi waana siyaasaddu u furan tahay mar dhawid waasiga Ruto wuxuu sheegay in bariga Afrika iyo guud ahaan Afrikaba ay mar laga wareysanayay Al Jazeera ay u furan tahay siyaasadeedu inay yimaadaan oo ay si madax banaan uga shaqeystaan siyaasadooda bal jabhadda ONLF shaqooyinka ugu muhiimsan ee bariga Afrika ka hayso maxay noqon karaan aad baad mahadsantahay Mustafa jabhadda ONLF bariga Afrika xoog bay ku leedahay xubno ahaan iyo taageer ahaan waxay si fiican uga howlgashay ilaa iyo waqtigii 2000 shirkii Imbikati halkan kadaata Soomaali lagu dhexdhexaadinayay xubnaha ONLF waxay ka hayeen active shaqada jabhaddu si xawli ah uga socotay meesha waxay ahayd ay maartay dhalinyarada kala gedisan hadday tahay ciidanka iyo hadday tahay aqoon-yahanka iyo hadday tahay ganacsiga iyo hadday tahay taageerada ugu faraha badan ee ONLF meesha ay ka bixi jirtay barigan Afrika weeyaan Soomaaliya Kenya iyo inta ku wareegsan jabhadda ONLF marka aad bay ugu xoog badan tahay bariga Afrika jaaliyadeeduna xawli bay ku socdaan mar walba aad iyo aad bay marka bariga Afrika jabhadda ONLF ugu xoog badan tahay mar hore iyo mar dambaba waxaan ka hadlaynaa waan ognahay xubnaha ONLF ee bariga Afrika inay aad u tiro badan yihiin bal dhanka siyaasadda ka waran ONLF siyaasad noocee ah bay bariga Afrika ku dhex leedahay iyo saameyn intee leeg marka bariga Afrika la joogo ONLF siyaasad xoog badan bay ku leedahay bariga Afrika ONLF horta markii magaca la soo sheego dadka qalbigooda waxaa ku soo dhaca gobolka ogaadeen iyo xubno ka soo jeeda ma aha ONLF waa urur caalami ah waa urur Soomaaliyeed Soomaalida Kenya Soomaalida Soomaaliya Soomaalida Djibouti iyo Soomaalida ogaadeen iyo Soomaalida daafaha caalamka kala joogta ONLF waa urur sumcad far badan dadka Soomaaliyeed ku dhaxlay marka siyaasadda ONLF ka ciyaarto nooc kasta oo ay tahay waa howlgashaa waxay doorataa imbiyada ka soo baxa wadannadaas oo dhan bay maartay saameyn ku wada yeelataa waxay maartay la falgashaa xafiisyada shaqeeya ee dawliga ah bay la shaqeeyaan waxay wadamadaas ay bariga Afrika ka kooban yihiin si ONLF xawli ah bay waa howlgashaa uguna dhex jirtaa marka ONLF waxa aad iyo aad u ogaan kara qaabka ay u xushan tahay bariga Afrika ninkii aqriya buugga uu qoray Maxamed Cabdi Afey oo habeen dhaweyta lagu daafuray Nairobi dhexdeeda waxaa ku xusan buuggaas isagoo shirkii Imbikati uu socdo
isaguna wuxuu min ka ahaa xubnihii firfircoonaa hawsha ayada ku howlanaa inay yani maaragtay halkaas shirka dhexdiisana ay howlgalkooda ka fushanayeen iyo waraaqahooda iyo wararkooda qaaraankooda iyo haddii alla mahad ka dhigay hawshoodana ay ka wateen oo ninkii buuggaa aqriya wuxuu ogaanayaa bariga Afrika xuduudda ay ku lahayd jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ONLF. aad baa u mahadsan tahay aadna waan kaaga mahad celinayaa faahfaahinta kooban aad ka bixisay awoodda ay ku leedahay ONLF bariga Afrika maadaama wakiilka bariga Afrika ee ONLF tahay. bal markan waxaan u gudbaynaa dhankaas iyo Ethiopia Xasan Bedel heshiiska intii la galay ONLF iyo Ethiopia ay wada galeen waxaad moodaa Ethiopiyadii kore in qulqulutooyin siyaasadeed ama dagaalo qowmiyadeed oo zaa'id ay ka bilowdeen bal warbixin inta la baad ka haysaa Ethiopia iyo maanta xaaladda ay ku sugan tahay iyo marxaladuhu say u socdaan adoo soo koobay Ethiopia arad ahday iyo ciil fara badan isku haysay iyo caburin fara badan baa qarxay marka waa dab la shiday oo xaabo badan la saaray oo shidaal lagu shubay say ku dantaana way adag tahay Ethiopia marka hadda marxaladda ay ku jirto waa marxalad laga daawanayo caalamka oo dhan oo nin aan ka qarsoonayn qolo iyo qabiil iyo qowmiyad bay isu haysataa dagaal ahlig ah oo aan weliba inuu qaboobo arrinta laga qabin baana ka dhex socda intii yani ay kolkii ay Soomaalida dhibaatada ay ku haysay dhibaatada hadda iyada isku haysaa yaa ka badan marka Ethiopia xaaladda ka socotay xaalad ayna ka soo waaqsanaynin oo tii ay u dhiman lahayd ay inay tahay laga daawanayo meel walba yaa ka dhex socota wada hadalka haddii aan ku sii socdo iyo xilligii ONLF iyo Ethiopia heshiiska ay qaateen heshiiskaasi wuu siqiray sida heshiisyadii kale Ethiopia la gashay ururadii kaleba oo u siqiray marka heshiiskaasi heshiis hadda taabagal oo meeshiisa ku taagan haba yaraatee ma aha qolo walba yani tartiibteeda kale iyo wixii hawlaha kale u taalan baa u taala laakiin heshiiska ay ONLF la gashay halaagani wuxuu ka socday waa ka bixitaanka heshiiska laga baxay ka bixitaanka heshiiska Pretoria laga baxay ka bixitaanka heshiiskii lala galay yani ururadii kale ee la nooc ahaa ka bixitaanka noocaas ama dhaqan marka heshiisna Ethiopia ma balahaba dawladda la heshiiyo sidii loo heshiiyo ku socota ma bahaba marka sidaa darteed hawsha iyada hadda maanta ku socotay waa hawl kaba bilaabatayba kaleexadka wadooyinka nooca ah caalamiga la isku ogyahay xasanow su'aal baan ka dhex weydiinayaa ONLF waxay ku soo celcelisaa Ethiopia ma laha dhaqan heshiis ay la gasho dad ay iska soo horjeedaan haddana waxaa la ogyahay ONLF inay gashay heshiis daacadnimo zaa'id oo ay ka muuqato marka miidan akhrinaynin Ethiopia iyo xaaladeeda iyo inay dhaqanada heshiis ka baxdo markii ONLF intay heshiis gashay ciidankeedii shacabkeedii xubnaheedii bogtadeedii wixii oo dhan hal mar ogaadeen oo Ethiopia marka ka talisa la geynay ma la qiimeeynin miyaa heshiiska sida hadda loo qiimeeyay heshiiska waa la qiimeeyay heshiisku wuxuu ahaa sahan buu ahaa wada hadal badan baa ka horeeyay oo soo kacay ku faahiyay 95tii wada hadalkii qabidahar iyo meelo fara badan ka dhacay baa soo socday heshiiskan kadaati maadaama dawlad saddexaad ay garwadeen ka ahayd dhexdhexaadintiisa dawlad saddexaadna lagu soo dhameeyay Eritrea dhexdeeda ku soo gabagaboobay Kenya in badan uu ka dhex socday waxa loo arkayay heshiis maqraatile oo wuxuu ka hirgeli baa loo arkayay laakiin jugjugabtaadii joog buu iska noqday in walba dabeecad ku taqaanay iskala soo bixi marka waxay ONLF u leedahay dabeecaba uma laha Ethiopia in la heshiiyo taas ha keenaysa sidii aan markii hore aan ka baqaynay ahayd inaan gaar u heshiino sidaas ay noqonaysa markii aan maqraatina laga noqdayna sidii un bay noqotay marka waa xaqiiqo weeyaan ONLF iskama laha ereygaas waa waxaan xaqiijinay weeyaan ma laha dabeeca heshiis Ethiopia laakiin su'aasheedu waxay noqotay u dhigan tahay daacadnimo badan baa ka muuqatay ONLF heshiiska ay gashay haddana waxay ogtahay ONLF inaynan waxay sheegaysaa ONLF inaynan Ethiopia dabci heshiis lahayn see la isku qabadsiin karaa daacadnimada badan ee ka muuqata ONLF iyo dabci aqoonta Ethiopia ee ONLF 30 sano oo ONLF la dagaalamaysa Ethiopia suurtagal ma tahay inaydan baran way dagantay ONLF waxay ku dagantay isbedelkii xilliga dhacayay baa dagay oo isagoo ku dhisuu beer la xawsi muujiyay aad u fara badan maxaabiistii sii daayay oo hadal ka soo bixeen ururka ONLF ku saabsan wadaniyadiisa iyo sumcadda geeska Afrika ku leeyahay ee ka soo bixeen marka xabad joojin bay naga hor dhawaaqeen beer la xawsigaas marka wuxuu keenay ONLF isku halay fara badan ay qaadato inta waxa uu helisay qoomiyad aan u arkaynay inay aan isku dannahay oo Oromo ah oo dhibaato fara badan iyada Ethiopia ay ku soo haysay Abasinia ayaa xukunka qabatay ONLF marka si laab la kaca
ayay daacadnimadkaasi ugu soo dhacay marka arrintaas waxay keentay inay onolef maaragtay hawshaas ay si 100% ay u aaminto oo ay u gasho laakiin ma ayna noqonin xaalad kale ay isu bedeshay qowmiyadii aan moodaynin ma noqonin xukunkii aan moodaynin ma noqonin halkeedii ay soo ahayd Melilig iyo Xayla Salaasi iyo Xayla Maryan iyo Mal Zinaawi iyo wadadii ay soo haysay Dhazale iyo bay iska sii haysaa marka taana waa kala adkaansho inaga kaliya ma aha qowmiyadii iyagu isla ahaayeen ayaa hadda inuu madax kaga istaaga moogiye inay wax isku ogyihiin ay hirgeliyaan ay ka suurtagali laadahay marka xaaladaasi waa sidaas ugu dambeyn ONLF waxay sheegtay inuu heshiiskaasi burburay si rasmi ah kalfadhiga loo dhexood qabatay mad ku sheegteen ma jirtaa hawshaas heshiiskaasi wuu burburay ONLF sida uu afayeenka ONLF BBC iyo ONA u xaqiijiyay inuu heshiiskaasi burburay kalfadhi baa lagaga hadlay waan ka doodnay waxa isu keentay ONLF heshiiskaasi inuu hadda shaqaynaynin heshiiskaasi marka hadda ma jiro marka wixii wada kale loo guurayay iyo in wada hadal kale la furo taas waa anaad tashigeedu waxa weeyaan waa laga tashanaya aad baa mahadsan tahay markan waxaan u soo laabanaynaa ONLF gudaheeda waxaa jira iyo maamulka BB-da ee Jigjiga waxaa jirta saraakiil ONLF oo muddo ku xidhan magaalada Jigjiga oo tiro badan muddadaas tiro badan 4 bilood bay ku dhawiyaan qaar xanuunada la noolaaday qabaan sida mas'uuliyiinta qaar kamid ah oo u baahan maalin walba dawo in la helo maalin walba intii la tastigareeyo qofka dhiigiisa marka bal maamulka BB ee Mustafa maxay mas'uuliyiinta intaan leeg ay u haystaan ONLF ayakon maxkamad la geeyay mas'uuliyiintaas waxay xidhan yihiin si sharci daraan oo ku xidhan yihiin iyagoo aan dambi lahayn shaqadoodii iyo shaqo maalmeedkooda iska watana waa lagu qabtay sababta ka dambaysana maamulka ma baahaba maamulka BB ma aha maamulka yaani deegaanka ma aha waa kooxdii falaagada ahayd ee hanyar bay saraakiishaasi u xidhan yihiin marka kooxdaasina waa koox lagu falxumeynaya ururka oo wayna soo dhici jireen way soo joogi jirtay wayna dhacdaa dhowrkii sano mar in maartay in laga fulaaxo ururka oo ay dawladdu adeegsatay Ethiopia muddo dhowr iyo 20 sano labadii sano mar baa koox maartay Ethiopia kala guujirtay ururka oo ay soo adeegsan jirtay kolba kooxda cusub ay dawladdu adeegsato yaana ka shaqo badan kooxdii hore ay u sii adeegaysay marka waxaad leedahay Mustafa uma xidhnay koox gaar oo kale u xiran Mustafa uma xidhna waa soo xaqiijinay anaga la xidhnay hay'adaha nabadgelyada aan la xidhnay deegaanka waxay mar walba dalban hayaan inay cidii u keentay ay ka dalbadaan inay sii daayaan yaa u keenay waxa uu keenay Cabdikariin iyo kooxdan hadda horjoogaha u yahay oo waxaad leedahay dadkaas waxay xiran yihiin hadda BB iyo Mustafa uma xidhnay Cabdikariin Sheekh Muuse Cabdikariin bay xiran yihiin ma anaga waxaan la xidhnay qol dhammaan hay'adaha amniga oo dhammaan la xidhnay si toos qoladaas ugu xidhan yihiin waraaqday soo saareen ay ahayd dhaqdhaqaaq naga garab shaqeynaya ma jiro ay kolkii hore soo saareen waraaq beenisay ka dalbadeen xataa iyagu way dheen dadkan waxaan ku haynaa ma haynaa waraaqad ku beeninaysaan keena way ka diideen ilaa haddana waa laga leeyahay marka ONLF sida ay BB oo la xiriirayso maxay Cabdikariin inta oo la xiriir u dhihi weyday dadkan masaakiinta ku xirxan xabsiyada ka sidaa hasha Cabdikariin sabab loo xiriira ma taalo waxa weeyaan qaabkii loo adeegsaday uu shaqeynaya intaas ay iyagu yaani waa sida loogu talagalay waxaad hadda ogtahay dib baan ugu yar noqonayaa taariikhda Xasan Macallin oo wada hadal ONLF iyo Ethiopia dhexmaray qayb ka ahaan jiray marar fara badan ayaa markii uu xaaladan iyada ay kale u galay wuxuu intuu shir qabtay wuxuu yiri 10 sano ma afduubnay oo yaanu afduubnay waa xaaladii la hadal isweydiin waxa weey ruux markuu isbedelo automatically wixii si dhanaa ee hore uu soo sameeyay iyo wadadii uu soo qaaday oo dhanba xaraan u noqonaysa waxyaalo la isweydiin kara weeyaan erigiisa ku jirta hadda way duuban tahay kana hadda waa sidaa هو مركب وضع على صياح يجي قبل يدون كاس السعودية أوروبا حقوق ضد كرادين هي بيكحيين وصي الصعود وأنا أنت يجوا أبى بلينهين مدني Cabdikariin wuxuu sheeganayay inuu ka duwan yahay kuwii hore ee riyaale iyo qoladii ilaa la isticmaalay doorashadii hore markay tamacday ONLF inay gasho marka qoladaasi mayna sameeynin xidhxidh ay xubno ONLF intay xidhaan inta in leeg u xidhnaado marka eedayntan aad sheegtay inaad cadeyn u haysaan ONLF daatiin oo ay u xidhan yihiin dadkaasi Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax oo ka tirsanaan jiray jabhadda ONLF waliba saraakiisha ciidanka ugu sarreysay ahaa maxay ka dhigan tahay maxaad adigu qiimeyn ahaan markaad qiimeyseen aad u aragtaan inay cadaynta aan u haynay waxa weeyaan waxa ugu weyn saddex arrimood sax arinta koobaad waxa weeye xubin ka mid ah xubnahaas baa miidiyaha
la soo istaagay shaqada annaga qabanayna waanu sii qabanaynaa haddii loo baahdana waan sheegaynaa caddaynta labaad waraaq bay soo saareen ay leeyihiin waa in arrintaas iyadaa laga howlgalo dowladdu shaqadaa ay qabato oo amar ah bay soo saareen markii la gubahayey xafiisyada ee calanka la gubahayey boolisku waxay tusahayeen xubnaha ONLF waraaqdaasay tusahayeen oo ay dhahayeen waraaqda amarkanaanu ku shaqaynaynaa waa caddayn labaad weeye caddaynta saddexaad ma kala midhnin deegaanka way joogtaa ONLF waan la xidhiidhnaa hay-adaha amniga ee deegaanka kuwa federaalkan la xidhiidhnaa xaaladda yani maaragtay hawshaas iyadaa dadka ku luglahoo dhan baanu la xidhiidhnaa caddayn iyadoo nagu filan oo halkaana waan ka haysanaa marka meel kaloo loo doonayo ma laha hay-adaha ammaanku maxay idin sheegeen ma inuu cabdikariin sheekh muuse u xidhan yihiin hay-adaha ammaanku waxay noo sheegeen inay kooxdaa u xidhxidhan yihiin gaar ahaan amarka cabdikariin ay ku xidhxidhan yihiin oo ay dadkaasiba jeelka ugu jiraan cabdikariin dadkaasiba jeelka ay ugu jiraan waayahay waa laba gudoomiye gobol oo aad iyo aad xubno u firfircoon oo saraakiila iyo xubin kaloo dhexa guddi fulin awey waayahay waxaad sheegtay nimankan kooxdan ONLF laga garab sameeyey ciidan ay isticmaalayaanna way haystaan dhaqaale dowladeedna saad sheegteen way haystaan raja adigu siyaasad ahaan xasan markaad qiimayso muddo badan baad ONLF ka mid ahayd muddo badan ilaa xilli hore dadkii xubnaha ururka ugu horreeyay baad ahayd waxaadan in badan ahayd wakiil siyaasadeed oo qaarad u jooga gees u jooga dalal badan waliba xiriiriye u wakiilka inta in la APC jir karaan baad aaminsantahay xasan bedel in ONLF kooxdan laga garab sameeyey ay shaqayso horta haddaba ma jiraan baa la odhan karaa waa dad un ka mid a shaqaalaha dowladda magacan gaarka ah ay wataana ururkaa lagu foolxumaynayaa iyaguna way sogyihiin dowladduna way ogtahay bulshada soomaaliyeed way ogtahay dad hadda yacni jiro oo hadda lafteeda guruuba ma aha salariga waxyaalaha yaryarka ee turtuurka ah maalinkuu midi waaye annagu nala soo xidhiidhaa qaar baa hadda habeenkiina ha yara maalinkiina ONLF maxaa ku kalifaya dee waxbaa ma ogtahay waxaan kadaata dadku meesha waad ogtahay meel shaqo abuur lama aha meel ganacsi ka suurooba maaha meel dadkeennina way wada tageen marka kooxda siyaalo kale gedisan bay ku shaqaysaa qaar waxbaa loo sheegaa dulduul ah qaar waxaa loo sheegaa wax kale oo qabyaaladii wax kaloo lamid ah qaar waxbaa loo marka kooxdu manager iyagu dhowdu inay soo gibnay inay jirin maalinka loo yeedhayo farsamo anigu aan ognahay waa loogu yeedhaa oo shirarka loogu qabtaa midkii fariin la farahaya shaqada soo qaba qaar baa hadda ka dhex shaqeeya oo kale loo diraa xuduudaha iyo meelo oo aanu la soconnaa oo ka howlgalaya maxay ka qabtaan waxay ka qabtaan dee waa hay-adaha amniga la shaqeeyaan waa jawaasiis wey hay-adaha amniga la shaqeeyaan marka hay-adaha amniguna gudi iyo dibad iyo daaqil bay kala leeyahay u kala baxaan marka adeegayaal noocaa weeyaan ee koox hadda dhisan oo la yaqaano meel ka soo bixi oo ururnimo u shaqeynayo iyaguna iskuma wadaan dowladda adeegsanaysaan kuma wado caalamka iyo dadka Soomaalidiina sidaa way u ogyihiin iyaga laftirkooda shakhsiga la sheekaysataay tabtaas ugu cadeynaya wartamaysi iyo farsama jirteen noo kaadiya ku dhacaya aad baad mahadsan tahay bal waxaan u soo noqonaynaa inta waxaan kuga gudbaynaa su'aashaas maxaabiista inta waxaa dheer mudane raalli adoo iga ah madaxweynaha deegaankuna waa madaxweyne mushaki ah oo cabsi badani ku jirto ayuu ka cabsoonayaa wuxuu ka cabsoonayaa xoogga ONLF iyo siyaasadda guracan ee uu ku dhaqaayo deegaanka oo ay uu ogyahay 95% dadku inay ka soo horjeedaan waxaa laga maarmaana marka juhdigiisa u fara badan inuu geliyo kala qaybinta iyo kala faquuqa iyo ONLF kala reebkeeda meesha kaliya khatarta ka dareemayaan halka weeyaan madaxweynahaas mushakiina waxaan ka taabto si abuuraya marka cimrigooda hadda weydiisay madaxweynahaana uu ku xidhan yahay hadduu caawa tago aroortii weena iyaguna lama arkaayo taasina iyaduna cimrigooda waa qayb ka tahay aad baad mahadsan tahay xasanow ogaadeenya dowlad deegaanka Soomaalida ogaadeenya inta uu isbedel ku dhacay waxa aad u jira aafa qabiili ah oo istil xuduudo barakic dhul samaysi walow haddana ay jiraan in xuduudaha deegaanka ay aad uga soo galaan ciidamo ka soo tallaabo dhanka Soomaaliya oo hub iyo saanad military wata oo dad shacab madar badan kullay sida gobolka Doolo Qoraxay iyo Shabeello dhinaca iyo Afdheer saddexda gobolba waa sida kan deegaanka Oromada iyo Canfartu ay u soo tallaabaan xadka
oo dad shacab ugu laayaan bay halka Soomaali badan ka soo talwada marka su'aasha guud waxay noqonaysaa mushkilada badan oo qabiili ayaa deegaankeena ka furan inta uu isbedel ku dhacay maxay ka dhigan yihiin mushkiladahan cusub ee ku soo cusboonaaday dadkeena ehelka Soomaalida halka qoys ee Soomaalida ee degan dawladda deegaanka Soomaalidu inay nolosha noocana ay dhex istaagaan maadsan tahay arrintaas waa arrin la bacriminayo la bacrimiyaa dawladdu waxay ku mashquulsan tahay si ay dadkan wadadooda uga leexin lahayd ayay ku mashquulsan tahay xaalad abuur waa arrintaas ku socotaa jahawareerka siyaasadeed bayna ka mid tahay dadkeenuna waqti ay fahmaan arrintaas ma ayna gaadhin fursadaana ma haystaanba marka in madaxa la isu geliyo laba qabiil waxaa ka dhalanaysa halkaa inayna iyagu isla soo qaadin wixii maslaxadooda ahayd ee halkaa ka dhalanaysa marka arrintan 43 goobood baanu diiwaan gelinay oo dil qabiil uu ka dhacayo dadkii wali walaalaha ahaa isu sii dhawaa meelaha waligood dil ka dhacay xuduudaha sidoo kale tabar yaraanna way keeni kartaa siyaasad xumadana ka mid bay noqon kartaa laakiin isku dhacyada inta badan waa xaalad abuur bay ku socdaan hadda waxaad arkaysaa gobollo aan isu daaqsin tagaynin aan isu ceel cabitaan tagaynin aan kala guursigii islaxqaadka raarihii iyo wixii walaalihii aan jirin arrintaana dawladda ka dambaysa laba maleesiyaad baa soo fadhida labada maleesiyaad baa dawladda xukunta dibab saasa ka jira deegaanka marka waxaad leedahay waxa xaalad abuuraya si ay ona u cadayso su'aashaada waxa xaalad abuuraya yaad ku eedaynaysa waxa xaalad abuuraya waa dawladda deegaanka federaalkana waxay ka haystaan liki sax waa xaalad abuur xaqiiqa ah oo qabiilooyinka in afka la isu geliyo si ayna u eegin dhibaatooyinka ku socda si ayna uga tashanin maslaxadooda si ayna u dareemin maamul xumada waxa ninba loogu dhiibay saasuu ninka kale ula hor fadhiyaa labadii nin marka ay tashan lahayd dhihi lahayd war waxaan min ugu xiyaa mise ugu fiican yahay labadoodaaba isla hor fadhiyaba waana arrin laga fikiri weeyaan waana waxay sameeyaan dawladaha caalamka tan kaliya tamay way sameeyaan dadka lama gumaysan karo haddaan la isku dirin marka si loo gumaysto dadka waxaad aaminsan tahay xasanow in ay ka shaqeynayaan isku dhufashada qabiilooyinka yes shaki kuma jiro marka faa'iidada ugu badan ee keenayaan waa muddo dheeraysi waa muddo dheeraysi waa inaan la dareemin waa inay dadku ku jiraan yani maaragtay cidhiidhi colaadeed oo intooda walaalaha ah oo ninka walaalkii iska ilaaliyo waa xaaladaas ayaa ku jirta waayahay gabagabadii iyo guntii barnaamijkan joognaa deegaanka Soomaalida ogaadeynaya waxaa ka jirta hadan abaara bilow ah waxaana ka jira sixir barar nolosha heerka bulshadu waxay gaadhay khatar aad u ba'an shaqo yari isbedelka waan ognahay dadka ogaadeynaya aad waxay ugu xidhnaayeen suuqyada sarifka oo dadku shaqo abuur rasmi ama haynin marka dadkooda qurbaha aaday baa biilal u soo diri jiray waadan la socotaa sarifku wuxuu gaadhay wax u dhow 18,000 oo lacagtaas Itoobiyaada birta ah noloshii dadku waa ciriiri sicir barar xaalad oo marana waa laga jiraa marka bal say kula eg tahay qiimeyntaadu in ay heli karaan gargaar dawladeed iyo aragti ka duwan aragtidii ay 7 sano ku soo noolaayeen mid ka bedel heli karaan badan baabiin baa ku socota dadka baabiin baa ku socota gargaar iyo noolayn kuma xaq uma soo socota taasi laakiin dadka baabiin baa ku socota inta waxa dheer oo aadan adigu sheegin kibirkii baa laga qaadaa geela la tiriyaa looda la tiriyaa ariga la tiriyaa waxa uu odayga wiilkiisu u soo tuuro yaa waxa looga qaataa gibir yaa looga qaataa ceelash baa laga cabilaayay daaqsimihii iyo meelihii duuxooyinka ah la daaqilaayay dadka marka baabiin baa ku socota rasmi ah hadalku wuxuu isugu soo imanayaa baabiin baa dadka ku socota mana meel ay kaga hadlaan iyo fursadaana ma haystaan marka su'aashii haddaan u soo noqdo ma heli karaan badamisinta ma heli karaan wax gargaar oo noloshooda dabaqa ma heli karaan uma soo socotaba tala bixin marka dadka maxay u jeedinaysaa xaaladda abaaraha ee uu dadku ku jiro in lagaga kabsan karo ama lagaga diyaar garoobi karo waan ognahay dayrtu ma fiicno xaalad adagna waa lagu jiraa dhul yaqaanna waa tahay oo ogaadeynaya waa ku soo jabaaday si fiican baad u kala taqaantaa dhul biyihiisu fog yihiin weeye xilliyada abaaru markay dhacaan waa meelaha xooluhu way fiican yihiin laakiin dadku biyo badan ma helaan oo dhulku saxare xigeen ma aha sida kan kale ee Soomaalidu ay jamhuuriyadda iyo Soomaalidan kale ee NFD sidoo kale ma dhulku waa dhul saxare xigeen ma aha marka bal maxay aaminsan tahay in lagaga kabsan karo ama diyaar garow bulshada aad u sheegaysaa tala bixin ku daawan tala bixinteedu waxa weeyaan dadku isku tashadaan si ay u wada noolaan karaan ha u wada noolaadaan kow horta colaadaha dhexdooda lagu abuuray hadijiyaan waa qodobka koobaad
si ay daaqsintooda iyo wada cabitaankooda iyo walaaltinimadkooda u soo noqdo oo waxaan lagu dhex abuuray ha ka dhinacaas iga badiyaan qodobka labaad ha is caawiyaan qoysba qoyska garabkiisa ha caawiyo arrinta kale dadkooda dibadaha u soo yaacay ee qaxootiga fog iyo qaxootiga dhow ku kala nooli dadka walaalahooda ha ka warhayaan waxaan ugu dambaysiinayaa kolley naftu wayba idinka bixiye waxaan sidan idin galahaya ee noocan kadaata aan idin daryeelaynina diiday dhaha oo maaragtay diiday dhaha haddii dowladda hadda meesha ka jirtaay dowladda dooranayo isla meesha haddaad cod ka weydo meesha waad ka baxaysaa ninka xildhibaankii oo isleeyahay wuxuun daryeel ahba yaraatee buu samayn lahaa laakiin waa la qorayaa hadda xog waxaan ku helaynaa in la qorahayo baarlamaankii soo geli lahaa ee 2026 soo geli lahaa deegaanka hadda waraaqa lagu qorayaa oo see loo qoraya xasano lama doorasho ma jirayso marka waa la sii qorayaa marka ninka kale hadii la iska qoranayo oo ninkan kadaata gobolka jooga iyo ninkan kadaata deegaanka isla qoontaynayaan gobolka inta xildhibaan ka imanaysa wax xil ah oo ka saaran dadka iyo wax daryeel oo ka saaran midna ma jiro marka waxaad leedahay sida Soomaalida kale iyo dadka ku xeeran adigu gobolka baarlamaan soo doorto male meesha malaha oo waa wax la qorsheysan oo hadda baarlamaanka xilliga soo gali lahaa hadda diiwaanka shamba aad baad mahadsantahay taasi waa runta waa cadeyn orana way kula cadeynaysaa inuunan ogaadeen aynan baarlamaankii ugu dambeeyay ee doorashadii maamulka lagu dhisay dawladda deegaanka Soomaalida una doorasho cadaalad iyo wax u eg xataa aysan ka dhicin kuntii gabagabadii barnaamijkeena joognaa waraysi dhinacyo badan taabanayo ahaa oo siyaasadda iyo dareenka bulshada bal maxaad hadalkaaga u dambeeyay ku soo gabagabeynaysaa maxaa kugu jira oo dareemaysaa inaad onana la wadaagto ama inaad dadka ogaadeynaya aad u gudbiso oo kula dardaarmi lahayd horta ona way mahadsan tahay shaqada ay hayso si la bajibaarto dadka ogaadeynayana waxaan leeyahay ama dibad jooga ama gudaha jooga shaqaydin taala ummad baan nahay ummad istaahisha inay noolaato oo sida adduunka u noolaataynu nahay isku tashigeenu ha xoogaysto xubnaha jabhadu ha diyaargaroobaan ha diyaariyaan yani maaragtay arrimahooda bulshada arrimahooda siyaasadda arrimahooda yani maaragtay abaabulka iyo kicinta ha diyaariyaan xubnaha taageerayaashii sidoo kale garab istaagooda xooganaa ha sii laba jibaaraan onolef waxay ka dhiman weyday gabdhaha iyo wiilka geela la jooga ayaa onolef ka dhiman weyday ilaa xilligii ay soo bilaabatay iyo maanta marka waxaan leeyahay halkii iyo wadadii baa inoo taala waan soconaynaa ilaa ka xaqiijinayno xuquuqda dalkeena iyo dadkeena aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo koobaynaa waraysigii koobnaa ee la yeelanay wakiilka ONLF ee bariga Afrika Xasan Bedel Rabigas waraysiga waxaan la socodsiinaya anigoo ah Mustafa Maxamed Cilmi inta aan ku kulmi doono waraysiyo xiga ama barnaamijyo xiga oo ka baxaya wakaaladda wararka Ogaadeniya waxaan kaga tageynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh